بسم الله الرحمن الرحيم رمضان cusub iyo barnaamijkeena diiniga oo cusub haddaad channelka ku cusub tahay subscribe saar barnaamijkeena diiniga ahay aanoo bilaawanayo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوالة channel كينا تقوى سوماليا channel مانت إيو فيديو عصب هدو إلهي راهو فيديو آك هادلي ربنا إن شاء الله تعالى خليفة دا أو سدحات أو بردونو هدو إلهي راه مانت إن شاء الله تعالى وحكا هادلي دونا ده فيديوهاش hore afirsan waxaa kasoo hadalnay Abubakar Sidiiq iyo Cumar bin Khattab waxyaalo aad u muhiimsan aan soo baranay waxyaalo aad u fiican aan ka soo baranay marka fiidiyoyaasha hore soo fiirsa fakana kadib fiirsada ilaahira maanta insha Allah taala waxaa baran doonaa khaliifada saddexaad oo ah Uthman bin Affan radiyallahu anhu magaciisa waxaa la Uthman bin Affan bin Abi Aas bin Abd Shams bin Abd al-Manaf bin Qusay ala dhahaa hooyadiisna waxaa lahaa Arwa bint Kariz bin Habib bin Abd Shams aa lahaa wuxuuna ahay kuwa rijaalka yani oo ugu muhiimsan amba ugu yani muhiimsan oo ahay wuxuu ku dhashay Makka wuxuuna islaamay bacda bicthada rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam yani wax yar kadib marka wuxuu ahay qani oo ahay saxaabi hanti leh oo ahay shariifan oo ahay fi aljiqas asarka oo jaahiliyada waxyaalaha muhiimsan oo sameeyay waxaa waaye inuu diyaariyay jeyshka al-casra fi sanada oo toddobaad oo hijriyada oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo yani qad qaza fiha tabuuk yani wuxuuna kamid yahay tobanka lagu bishaareeyay jannada oo kamid yahay khilaafadan wuxuu qaatay markaa la dilay Cumar bin al-Khattab wuxuu ahay saxaabiga guursaday labada gabdhood rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam Ruqayya iyo Kalthum radiyallahu canhum jamiican xaadka oo sameeyay Uthman bin Affan radiyallahu canhu waxaa kamid ah sanadka 27 oo hijriyada xamlad oo u diray ambiskale yani xamlad yani ma aqaan Soomaali waxa lagu leeyahay xamlad Allah marka la diyaarinayo dagaal oo baxar dhinaca badda ah oo diyaariyay sida loo qaswo ambiskale loo galo Andalus wuxuuna ahay saxaabiga ugu horeeyay oo ku fikira inuu furiyo Qastantaniyada iyo inuu galo Yurub an tariiq dhinaca wuxuu ka galaa Isbaaniya ka galaa sida ugu gaaro oo ugu wada furo wuxuu ahay saxaabiga oo jamciya suxufka quraankeena kariimka oo ahay suxufka yani oo aruuriyay kitaabkeena quraanka kariimka oo ahay kitaab quraanka kariimna wuxuu ku ahay maxfuuda dhinaca waxa haysa zawjada rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam Xafsa bin Umar bin Khattab oo dhaliyay Umar bin Khattab gabartiisa oo qabiyay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ahaysay quraanka marka nuskhadii oo wuxuu ka dhigay hal musxaf oo ka dhigay asoo yani kaashanaya ambiskale yani la jooga Zayd bin Thabit iyo saxaabiyiin kale oo xafidsan quraanka marka ka hadalna dilkiisa runtii aad iyo aad u xanuun badan tahay wax yar waxaa la dilay shawaal markay ahayd shawaal sanadka 35aad waxaa imaaday firqad ka imaaday Masar ay ka imaadeen waxayna wateen kitaab inay la dilo zucamaa ahl Masar markaas iyo Uthman bin Affan oo inkiray laakiin way xaasileen yani way xirxireen meelay ku xireen 20 biri amba 40 biri waxayna u tiideen masaajidka inuu aado waxayna u diideen inuu biyo cabo markay arkeen saxaabadii inay saas lagu sameeyo Uthman bin Affan way isku diyaariyeen inay la dagaalaan dadkan xireen saxaabigeena Uthman bin Affan radiyallahu anhu laakiin Uthman bin Affan wuu diiday laana marabin dhiig muslim dhulka inuu ku daato markaas gadaashiis inta imaadeen maalkii wixii dhamaa ee ka dhaceen markaas ay ku hajuumeen asoo quraan akhrisanayo Uthman bin Affan markaasaa zawjadiisana ila timida inay yani ay ximayso zawjkeeda laakiin iyadana seefaha lagu dilay faraha ka go'ay markaasaa la qabtay Uthman bin Affan radiyallahu anhu markaasaa la dilay dhiigiisna wuxuu ku daatay quraanka oo akhrinayay lagu dilay wuxuuna noqday shahiid oo noqday subaxii ciid al-adha yani ciidka weyn oo noqday sanadkii 35 oo hijriyada marka waxaa lagu duugay baqiic
waxaana ahay maqtalkiisa Cuthmaan bin Cafaan fitnada muslimiinta dhex taal ilaa waqtigeena hadda. Waa u jeedaa hadda dadkii muslimiinta inay isbaabi'inayaan. Marka Cuthmaan bin Cafaan yani radiallahu canhu si xun aa loo dilay. wuxuuna jiriyey 82 sano oo jiriyey radiallahu canhu. maanta qisadana intaasay ku eg tahay. waxaa baranay saxaabigii saddexaad oo ahaa Cuthmaan bin Cafaan. waxaa baranay magaciisa, khilaafadiisa, inuu yahay saxaabi ugu horeeya oo guursaday 2 gabdhood oo rasuulkeena caleyhi salaatu wasalaam, Ruqayya iyo Kaltuum. waxaa baranay waxyaalaha soo sameeyey. waxaa baranay inuu qur-aanka qofka oo saxaabiga aruuriyay inuu asaga ahaa oo kasoo arooriyay zawjada rasuulkeena caleyhi salaatu wasalaam, Xafsa bint Cumar bin Khataab kasoo arooriyay. waxaa baranay sida xun loo dilay aa baranay iyo meesha lagu duugay iyo da-diis markuu jiriyey inuu jiriyay 82 sano markuu dhimanayay. iyo fitnada ilaa hadda socota. hadda waxaa arkaysiin dad isdilaayo mana oga maxay isku dilayaan. yani waxaa arkay هذا ما u baahnidin xataa ina example nii keeno. Soomaaliya kasoo qaada qofaa la dilaa ma la oga ninkan dadka dilaayo ma oga sababta u dilaayo, kan la dilaayana ma oga sababta loo dilaayo. fa fitnada way socotaa waatana waxayna bilaabatay waqtiga Cuthmaan bin Cafaan radiallahu canha oo la dilay. marka ilaahayna asturo, ilaahayna badbaadiyo, ilaahayna aa weydiinaysanayna inuu dhimano mowtad shahiid inaan naqano. dhamaanteena hadduu ilaahay yiraaho videoga iyo videoga xiga iyo khaliifada kan dambe oo xiga oo khaliifooyinka afaraad waan ii fasira. horta koo videoga iyo koowaad aa ka fasire waxa khaliifo laga wada iyo 10 mubashiriinta biljanna. maanta waxa video dambe wuxuu noqonaa khaliifada ugu dambeeyay oo afarta ahaa baradoona insha Allah tacaala videoga iyo videoga xiga. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. waad ku mahadsantahay daawashadaada quruxda badan. jazakallah khair. sida hore ugu socdo channelka ka ilaawin subscribe, like, share. Assalamu alaikum.